asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu mar kale kusoo dhawaada barnaamijkeena ramadaan english series maantana waa maalintii 29aad weyaan si guul ayuu inoogu soo dhammaaday barnaamijkeena hal maalin ayaa naga xigto mar kale soo dhawaada maanta waxaan kaga hadlaynaa u diyaargarowga maalinta ciidda sida dharkaaga diyaarintiisa iyo feereyntiisa ayaan kaga hadlaynaa waxaa soo jeedinaya waa anigo ustaad maxamuud axmed xaaji marka waxaan filayaa haddii aad bishan ramadaan intay socotay oo dhan aad igu soo taxneed si fiican ayaad uga faa'iidaysatay barnaamijyada aan meeshaan kusoo gudbiyo sida youtube-ka iyo facebooka haddii aadan weli ugu soo biirina mar walba ad nagu soo biiri karaysaa haddii aad hadda nala soo jaan qaadaysane casharadii aan soo wadnay bishan ramadaan intay socotayna dib ayaad uga daawan doontaa applicationkeena wax ka baro academy oo ay ku diyaarsan yihiin youtube-kana waa ay ku jiraan facebookana waa ay ku jiraan soo dhawaada marka maalintii 9aad weeyaan jumlada ugu horeysa ee aan qaadanayna waxa weeyaan we're busy cleaning the house and preparing traditional sweets for the guest waxaan ku mashquulsannahay nadiifinta guriga iyo diyaarinta macmacaanka ee martida noo imaan doonto maalinta ugu dambeysa ee bisha ramadaan maxaa la sameeyaa sida maalinta 9aad waxa weeyaan waxaa loo diyaargaroobaa beri inay ciid noqon doonto haddii ay ciid noqoto waxa weeyaan diyaar ayaad u tahay marka guryihii ayaa la nadiifiyaa boorka laga jafaa alaabtii la dhaqaa cuntooyinkii xalwadii iyo buskudkii ayaa lasoo diyaarsadaa soo maahan marka waxaan baranay preparing diyaarin traditional sweets waa cuntooyinka macmacaanka ah ee dadka dhaqanka u leeyihiin sida buskudka iyo xalwada iyo wixii lamidka waxaa kaloo ayadana isleeyahay way nagu cusub tahay ama waa baran karnaa waxa weeyaan guests waa martida weeyaan we are busy cleaning the house and preparing traditional sweets for our guests martideena ayaan u diyaarsanaynaa preparing iyo traditional sweets isku day qaybta commentiga inaad hal jumlo ama laba jumlo aad ku soo qorto haddii aad applicationka igala socotane codka halkan ayaad ka dhagaysan doontaa I need to make sure my Eid clothes are pressed and ready for tomorrow morning waxaan u baahanahay inaan diyaarsado inaan hubiyo inay dharkayga ciidda ii feeraysan yihiin ina diyaarsan yihiin beri haddii ay ciid noqoto pressed marka waxaan baranay pressed waxa weeyaan feereysan weeyaan markii la feereynayo weeyaan ama kaawadees ayaa la dhahaa filayaa ama markii waxa weeyaan ironing erey kaloo loo dhigmo waxa weeyaan ironing inaad feereysid weeyaan ironed pressed marka pressed waxa weeyaan inay jactad aysan lahaynin oo la feereeyay weeyaan I need to make sure my Eid clothes are pressed and ready for tomorrow morning dharkayga ciidda in ay ii feeraysan yihiin ayaan rabaa inaan hubiyo ay diyaar ii yihiin maalinta ciidda pressed marka waxa weeyaan kaawadeyn miyaan lahaye ama feereen aniga feero ayaan aqaanaa iron so that there is no wrinkles waxaa la dhahaa jactad ama jajab markaad feeraysatid jactadka iyo jajabka uu ka baaba'ayo weeyaan alright everyone is eagerly waiting for the official announcement of the moon sighting habeenka 29ka ee dhammaato maalinta 29 ee dhammaato oo beri ay 30 tahay oo kale sida caawa oo kale waxaa la sugaa in lagu dhawaaqo maalinta ciidda soo maahan in bishii la arko oo lagu dhawaaqo ayaa la sugaa eagerly marka waxa weeyaan sugitaan ay ku dheehan tahay maxaa la dhahayay damac badan rabitaan badan oo ku dheehayay eagerly sida caruurta oo kale sida sugayaan oo kale in beri ciid inay tahay la sheego eagerly marka waxa weeyaan waa damac badan ama jaceyl badan wax aad u qabtid oo aad sugaysid weeyaan eagerly official announcement ku dhawaaqida officialka announcement waxa weeyaan ku dhawaaqid ama iclaamin weeyaan iclaaminta officialska ee xafiisyada wasaaradaha ka soo baxdo oo kale dowladda ka soo baxdo ayaa la official announcement of the moon sighting aragtida bisha marka casharkan ama mashruucani Ramadan English bilaabanayay maalintii ugu horeysay waxaan baranay ereyga moon sighting the moon has been sighted so maahan hadda sidoo kale ayaa lagu bedelay moon sighting aragtida bisha
aragtida bisha. Eagerly si hami sare leh ama si aad iyo aad ah weeyaan, isku day qaybta commentiga inaad kusoo qortid hal jumlo adigoo isticmaalayo. Waa fahanteen aan filayaa. Quizkana ha laga soo shaqeeyo applicationka iyo kugu diyaarsan yahay. Soo dhawaada mar kale. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.